waxaan idin markhaati gelinayaa malaa'ig yahay annii qad gafartu lahu. saxiixu muslimka waxaa ku qoran, imaam albukhaarina waa soo saaray, waa saxiixaynku xadiidku wada yaalla. wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ina lilahi tabaaraka wa tacaala malaa'ika yatuufuuna fi اطariiq. ilaahay wuxuu leeyahy malaa'ig suyaaxa dhulka mara. malaa'igtaasi dan kale ma laha, waxay raadacaynayaan meel ilaahay lagu xusayo ay ka shiraan. malaa'ig siyaaxa ah oo dhulka socda, waxaanay raadacaynayaan duul ilaahay xusaya inay helaan. marka ay meel yimaadaan goob ilaahay lagu xusayo isu yeedhaan, waxay dhahdaan waar halkan baa ilaahay lagu xusayaa kaalaya. waayo malaa'igtu meelaha xumaa lagu wado ma soo xaadirto, waxayse soo xaadirtaa dhulka khayrku joogo. meel khayr ka jira marka ay arkaan ayay isu yeedhaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. tanaadow halumuu ilaa xaajatikum bay idhaahdaan. balka warran fadhi malaa'igtu isugu yeedhanayso leedahay war bal halka isugu keenkeena. malaa'igtaa isu yeedhato waxay idhaahdaan baahidiinni baa hesheene u kaalaya dantiinni. ilaa iyo samada isdul koraan buu xadiidku tilmaamaya. fayaxfuuhum biajnixatihim ila asamaa. malaa'igtu meeshan la fadhiyo ilaa iyo samada ayay isdul karuuran tahay. markaasaa rabbigood weydiiyaa isagoo uga aqoon badan. wuxuu idhaahdaa addoommahaygaa aragteen maxay leeyihin ayaa ilaahay weydiiya subxaana wa tacaala. waxay idhahdaan ilaahayo way kuu tasbiixsanayaan oo xumahay kaa nasahayaan. tasbiixdu waa ilaahay oo aad xuma ceeb ka reebtid. wayukabbiruunak waa ku weynaynayaan. wayaxmuduunak waa kuu mahadnaqayaanoo waa ku ammaanayaan. xamdigaaga iyo majdigaaga, ammaantaada iyo sharaftaada sheegsheegeeday wadaan. ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa subxaana wa tacaala, hal ra'awnii, miyay arkeen kuwaasi? markaasay malaa'igtu tidhaahdaa laa wallaahi maa ra'awk. kuwa sidaa kuu ammaanaya ilaahayo kumanay arag. ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa markaasi subxaana wa tacaala, kayfa low ra'awnii, maxay yeeli lahaayeen hadday arki lahaayeen? waxay idhahdaan ilaahu hadday ku arki lahaayeen cibaadadoodu, tamjiidkooda iyo tasbiixooda, yacnii xuma ka hufnaantay samaynayaan iyo say kuu ammaanayaan iyo sheegsheegoodu wuu ka badan lahaa inta tan. ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa malaa'igtiisa markaa maxay weydiisanayeen? waxay idhahdaan ilaahu waxay ku weydiisanayeen jannadaada. rabbaa wuxuu yidhaahdaa oo miyay arkeen jannada? may baa la yidhaahdaa. bal maxay yeeli lahaayeen buu rabbi leeyahy hadday jannada soo arki lahaayeen? weynideeda iyo badhaadheeda iyo barwaaqadeeda waxa yaalla hadday arki lahaayeen maxay samayn lahaayeen? ilaahu hadday soo arki lahaayeen dadaalka intay ka sii badin lahaayeen bay idhaahdeen. baadigoobkeedana wuu u tiro badan lahaa, hunguriga ka hayaana wuu tiro badan lahaa. dabeeta waxay rabbaa wuxuu weydiiyaa maxay iga magan gelayeen? waxay idhahdaan ilaahay naartaaday kaa magan gelayeen. oo naarta miyay arkeen baa la yidhaahdaa. ilaahow may arag. hadday arkaan maxay yeeli lahaayeen? ilaahayow way ka carari lahaayeen, say imka uga ordayaan si ka badan bay uga firdhan lahaayeen, waana cabsidooduna waa ku badan lahayd. ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa subxaana wa tacaala, natiijadii xiwaarkii ilaahay iyo malaa'igta dhex maray waa kan. aslilmas'ala waxay ahayd dad ilaahay xusaya iyo malaa'ig dhulmar ah oo dhulkooda iska socda oo daydeeya dhulka ilaahay lagu xuso oo helay goob ilaahay lagu xusay. dabeetana rabbi su'aala weydiiyey, malaa'igta talo ay ka jawaabeen. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu gebagabeeyaa markaa, ushhidukum, waxaan idin markhaati gelinayaa malaa'ig yahay annii qad gafartu lahum. kuwa inaan dembigooda dhaafay ayaan idin markhaati geliyey baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. qiyaama u markhaati fura kuwaas inaan dembigooda dhaafay. malaa'igtu markaa way haddaano waxay idhaahdaan, malaa'igta ka mid ah haddase xadiidka qaarkood tilmaamay, waxay idhaahdaan ilaahayow waxaa ku jira mid isagu dan kale u yimi, midaan isagu xuskan iyo baabkan la soconayn, dan kaluu watay oo waxbuu muraajacaynaya. ma qof baa meesha ka soo galay, ma wax kale, yacnii xaajo kale, baahi kale miday waday ayaa meesha jooga. ilaahay wuxuu yidhaahdaa subxaana wa tacaala, isagana dembigiisa waa dhaafay. kan isagu iska yimina waa la dhaafay, waayo
hum اljulasaa laa yashqaa bihim jaliisuhum ba ilahay yidhaha waa duulka la fadhiyaa aanu hoogin buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwan daraaddood ayaan kana ugu dhaafay baa ilahay yidhaha subxaana wa tacaala idan majaalisu dikri haddaad fadhiisato